weligaa ayaysan ku qaldin muuqaalka sare. Ninkan sheekadiisa waxay tahay inuu iska dhigo qof wadno xanuunayo. Sawirkan waxaa soo dhigay shaqaale ka shaqeeya maqaayad cunto si uga digo dadka. 20 maqaayadood oo ku yaala Spain. Dadkii lahaa waxay dhaheen ninkan cuntada ayuu nagu cunaa, markuu dhammaysto waxa uu iska dhigaa inuu wadno xanuunayo ama wadno xanuun kusoo booday si uusan u bixin lacagta cuntada. Dhulka ayuu galgashaa, weelka ayuu laaglaagaa, ninkan matalado dhan baa ku dhan. Marka ay timaado ambulance ay dhakhtarka geyso oo iskaga soo baxa dhakhtarka, ma moodidba ninkii wadno xanuunayay ee dhulka sila dhacay. Maqaayad kale ayuu horey kasii tagaa. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu maqaayad tagay sidii caadadiis ahayd. Wuxuu rabay inuu maqaayada taago ama sawiro. Shaqaale ka shaqeeya maqaayada ayaa ku fahmay oo sawirkan ka qaaday, wuxuuna ku faafiyay social media. Ninkii waa la soo qabtay waxaana lagu xukumay 24 cisho kaliya. Dembiga uu geystay ninkan ayaa dembi weyn ahayn say qaban askarta Spain, laakiin dadkii maqaayadahooda uu cuntada ka cunay ayaa waxay ku dacweeyeen maxkamadda in ay ninkan loo xiro 2 sano. Jeelka hadduu xataa ku matalo wadno xanuun, finkiis waa la fahmo uma malayn inuu ka soo baxay karo.